السلام عليكم ورحمة الله. كسر دوادة channel-keena. waxaan maanta halkan idinku soo gudbinaynaa 10 qodob oo aad ilmahaaga ku jeclaysiin kartid salaada. Marka hore fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto muuqaaladeena dambe lana wadaag saaxiibada. sidaan ognahay salaadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan diinta Islaamka, waana tiirka labaad ee tiirarka Islaamku ku dhisan yahay. haddaba waxa waalid walba xil ka saaran yahay siduu ilmihiisa ugu tarbiyeyn lahaa salaada una jeclaysiin lahaa. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa 10 qodob oo aad ilmahaaga ku jeclaysiin kartid salaada. qodobka koowaad, marka hore bar cunugaaga salaada. ha ku arko adiga oo tukanaya si uu kugu daydo una bilow inta uu yar yahay. inta badan ilmaha waxa ay qaban og yihiin marka ay yar yihiin waa waxa ay arkaan. qodobka labaad, ku bilow marka uu aad u yar yahay. marka uu soo gaaro da'da wax kala garashada ee 3 sano ilaa 4 sano ama xataa ka hor, tusi qaabka loo tukado adiga oo aan amraynin. nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waa isagii yiri: amar ilmahaaga salaada marka uu jiro da'da 7 sano, kuna garaac marka uu 10 sano gaaro. culimada qaar ayaa hadalkaas ka qaadanaya inaan ilmaha la dili karin ilaa uu 10 sano ka gaarayo, maadaama salaada oo ah waxa ugu muhiimsan qofka muslimka ah aan lagu garaacin ilaa uu da'daas ka gaarayo. qodobka saddexaad, u samee ilmahaaga salli gooni u ah. marka uu xoogaa soo weynaado cunugaagu, isku day inaad u soo iibiso salli gaar u ah, kana dhaadhici inuu isagu leeyahay uuna ku tukado marka salaada la gaaro. wuxuu dareemi doonaa muhiimadda salaada waalidka agtiisa ka joogto. qodobka afaraad, u tusi salaada si toos ah ama practical ah. marka qaar cunuga u kaxee masjidka si uu u arko dadka oo tukanaya. haddii ay macquul tahay, u shid muuqaalo dad tukanaya sida xaramka oo laga tukanayo ama masaajida kale ee waaweyn. qodobka shanaad, xaflad u samee marka uu si fiican u barto salaada. u yeer oo casimaad u fidi saaxiibadii sida kuwa dugsiga la dhigta ama iskuulka si ay qayb uga noqdaan farxadda iyo heerka uu gaaray. qodobka lixaad, bar Ilaahay kuna xir. ilmaha inta uu yar yahay mar walba uga sheekay weynida Alle iyo awoodiisa. fahansii in Allah abuuray waalidkiis iyo isaga, sidoo kale Rabbi leeyahay adduunka oo idil. ku bilow arrintaas marka uu aad u yar yahay. qodobka toddobaad, haliyey uga dhig Nabi Maxamed. ilmahaaga bar Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. uga sheekee taariikhdiisa iyo dhibkii uu nabigu u soo maray in maanta aad islaam noqotaan. u sheeg inay ka dhigtaan qudwo ama role model, yacni qofka in lagu daydo ugu mudan. marmarka qaar su'aalo ka weydii waxyaabaha aad ka bartay ee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ku saabsan. qodobka 8, tartiib u fahansii una sheeg inuu salaada midba mar ku daro ilaa uu kala qabsado. ha ku wada amrin inuu 5 salaadood hal mar wada tukado, gaar ahaan inta uu ka yar yahay 7 sano. qodobka 9, ku dadaal inuu daa'imo, yacni inuu mar walba tukado. weydii mar walba inuu tukaday. ilmaha marka ay yar yihiin waxa laga yaabaa inay hilmaamaan waxyaabaha aad u sheegto. si tartiib ah u weydii inuu salaadii tukaday iyo in kale. haddii uusan tukan, si aayar ah ugu sheeg inuu hadda tukado. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan channelka subscribe dheh, asxaabtaadana la wadaag si ay uga faa'iidaystaan. wassalaamu calaykum.